wuxuu leeyahay assalaamu calaykum sheekh aan ku salaamay marka hore waxa aan ku weydiinayaa marka khudba jimcadu ay socoto oo iimaanka nabiga calayhi salaatu wasalaam uu ku saliyo marka hadii aan ku saliyo aniguna jimcadu ma iga buraysaa alxamdulilah maya walow masala khilaafiya ay tahay khilaaf ka taagan yahay laakiin nabiga inaad ku salido sallallahu alayhi wa sallam ama qof soo galay oo dadka salaamay laga radiyo ama qof indhisaday oo alxamdulilah yiri raxmukallahu la yiraahdo oo masaa'il dhowr oo isku mid oo khilaaf ka taagan yahay khudbada inta lagu jira dadku ma samayn karaan mise ma samayn karaan nusuus cumuumaad iska hor yimid baana darteed keenaya qaar si guud wax u diidaya iyo qaar waxyaabo gaar si guud wax u faraya aniga waxaa raajix ilaa inay dhibaato lahayn oo la samayn karo wixii waajibaadka sharcigu waajibiyay hadday sababteedii timaado sida salaada taxiyada baa loo tukanayo kuwana in lagu saliyo karo nabiga raajix sax ilaa sallallahu alayhi wasallam kaza darteed waxaan leeyahay dhib ma laha billahi tawfiiq